وهجاج aan ku hormarnay ciidamadii Eritrea loo qaaday ee Soomaaliyeed ayaa loo soo wadaa Muqdisho si ay qayb uga noqdaan dabaaldegga 12 Abriil xogo hoose oo helay dhanka wararka ayaa waxay sheegayaan in hadda ay heegan buuxa ku jiraan dhammaanba ciidamadii loo qaaday Eritrea ee Soomaaliyeed kuwaas oo tiradoodu gaarayso ilaa 5,000 oo askari kuna soo wajahan yihiin gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si ay qayb uga noqdaan maalinta dabaaldegga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 Abriil xogaha kala duwan iyo sidoo kale xiriireen la sameynay askartan ku sugan dalka Eritrea gaar ahaan Asmara ayaa waxay inoo xaqiijiyeen warkaasi uu jiro isla markaana la soo qaadi doono maalmaha soo aadan Muqdisho ay ku soo wajahan yihiin mid kamid ah askarta oo la hadlay dhanka wararka ayaa waxa uu yiri waa sax arintaas way jirtaa ciidamadeena dhagibi ahaan heegan ayaynu ku jirnaa waana loo dhameystiray hubkeennii iyo saladii kale ee militariyan ku howlgali lahayn boorasooyinkiina way xirxiran yihiin waxaan ku soconnaa Muqdisho dhulkeennii hooyo waxaan rabnaa in qayb ka noqon maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in qayb ka noqono xaqiijinta amniga Soomaaliya iyo sidoo kale in aan dadka Soomaaliyeed ka xoreyno cadawga heesa ay yiraahdeen qaar ka mid ah askartan oo la hadlay dhanka wararka kadib xiriiro kala duwan aynu la sameynay sidoo kale macluumaad aynu ka helnay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ciidamadan Eritrea maalinta ay ku deegaan garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho loo diyaariyay askar saraakiil ah taliyaasha ciidamada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo soo dhaweyn doona si heer sare ahna ciidankan loo soo dhaweyn doono sidoo kale ciidamadan waxay sheegeen inaysan jirin cid dagaal uga dhimatay oo dagaalka Itoobiya inaysan ka qayb qaadanaya xaqiijiyeen balse ay jiraan askar xirada dhexdeeda xanuuno kala duwan ugu geeriyootay sida ay noo xaqiijiyeen xaalka ayaa hadda isbedelaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana jawi weyn oo dhanka ciidamada iyo isbedel amni ayaa laga dareemayaa waxaa sidoo kale soo baxaya warar kala duwan oo tilmaamaya in ciidamadan laga soo wado Eritrea ee Muqdisho la keeni doono ay si weyn qayb uga noqon doonaan howlgalka cusub ee ATMIS ee Soomaaliya ee lagu bedelay AMISOM kaas oo qayb ay kala noqon doonaan ciidamada midowga Afrika ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho maalinta 12 Abriil isbedel weyn oo dhanka ciidamada ah ayaa jiri doona bilada ay la guddoonsiin doonaa geesiyaasha qaranka qaarkoodna waa la dalacsiin doonaa haddana soo laabto wararka magaalada Muqdisho howlgallo culus ayaa ciidamada militariga Soomaaliya ka bilaabayaan Muqdisho sida xogta aynu ku helnay ka hor inta aan gaarin 12 bishan Abriil oo ah maalinta la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 62 sano guridii ka soo wareegatay ayaa hadda waxaa soo baxaya macluumaad iyo warar kale oo tilmaamaya in ciidamada militariga Soomaaliya howlgallo culus ay ka bilaabayaan guud ahaan magaalada Muqdisho maadaama fantasiyaha inta badan ay ka dhacayaan caasimadan maadaama ay ku yaalaan taliska guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ciidamada militariga ayaa howlgalka waxay ka soo bilaabi doonaan sida xogta la sheegayo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ilaa degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho ayayna howlgalkan isdaba taxnaan doonaa si loo xaqiijiyo amniga caasimadda maalmaha dabaaldegga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dibaarintan waxay shak weyn ku abuurtay xubnaha mucaaradka Soomaaliya oo qaarkood bay aamineen in iyaga lagu soo wajahan yahay oo howlgalkaas uu sanahayn amni xaqiijin balse iyaga laga qaban rabo hase yeeshee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay noo xaqiijiyeen in howlgalkan uu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo si ay si nabdoon ugu dhacdo maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa kale oo macluumaadka ay tilmaamayaan in ciidamada militariga oo kaliya ay xaqiijin doonaan amniga caasimadda Muqdisho maalmahan soo aadan ee fooda nagu soo haysa sidoo kale ciidamadii booliiska ahaa ayaa gabi ahaantoodba la xareeyay gaar ahaan ciidamada Haramcad sida xogta la helay ay muujinayso kuwaas oo laga saaray dhammaanba kontaroladii magaalada ay ka joogeen laguna xareeyay xiriye magaalada Muqdisho loogu diyaariyay qorshahan ayaa waxa uu yahay in amniga caasimadda maalmahan kooban lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lana xaqiijiyo gabi ahaan ammaanka magaalada Muqdisho min galbeed ilaa waqooyi sida xogta la helay ay tilmaamayso sidoo kale warar dheeraad ah oo helay dhanka wararka ayaa waxay tilmaamayaan in magaalada Muqdisho lagu soo rogi doono bandow habeenada soo aadan sida xogta la helay ay muujinayso saraakiil hoose oo la hadlay dhanka wararka ayaa waxay arintan inoo sheegeen loo gol leeyahay in gacanta lagu dhigo dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada Muqdisho isla markaana wixii ka dambeeyay labada habeenimo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gabi ahaan dhaqaaqada laakiin doono oo bandow lagu soo rogi doono ilaa amar dambe sida saraakiishan ciidanka ka tirsan ay u xaqiijiyeen dhanka wararka hadda waxaa soconaya diyaar garow weyn oo dhanka fantasiyaha maalinta 12 Abriil oo si weyn loo hadalhayo diyaar garow weyn ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana maalintaas ay noqon doontaa maalin gaar ah ciidanka oo lagu soo bandhigi doono qalabkooda hubkooda tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn u diyaariyay ciidanka maalintan isagu qayb ka noqon doono
fantasiyaha iyo bandhiga ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Durba hadda waxaa Muqdisho laga dareemayaa culays weyn oo dhanka militariga ah, waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo xaafadaha qaar ee caasimadda lagu arkayaa ciidamo xad dhaaf oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka, qoryo nooc walba leh, taagan isgoys walba oo magaalada ah, taas oo ku xaqiijinaysa inuu soo dhawaaday qorshaha talisku u dejiyay xaqiijinta amniga caasimadda iyo in militariga gacanta ay ku dhigaan gabi ahaantoodba. waxaa hadda soo baxaya walaac weyn oo ay muujinayaan xubnaha mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana qaarkood laga soo xigtay in howlgalkaas uu yahay mid lagu qarinayo in iyaga la qaarijiyo ama gacanta lagu soo dhigo, balse cabsidooda uun weeyaan arrintaas sidan loo xaqiijiyay oo howlgalkan waxa uu noqon doonaa mid amniga caasimadda gabi ahaan gacanta lagu gelin doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa iyo maalinta fantasiyaha uu ka dhacayo, sida macluumaadkan helnay ay xaqiijinayaan. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbedel weyn oo amni ayaa laga dareemi doonaa maalmaha soo aadan, waxaana magaaladan lagu arki doonaa ciidamo militari ah, iyadoo la sheegayo in ka hor intaan bandowga la bilaabin magaaladana howlgalka uusan ka bilaaban, ciidamadu marka hore la geyn doono xaafad walba oo magaalada Muqdisho iyo guri walba ah si amnigiisa ay u xaqiijiyaan. sidoo kale macluumaadkan waxay tilmaamayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aysan dhibaateyn doonin shacabka Soomaaliyeed oo dhimrin doonaan, balse cid walba oo hub wadata oo liddi ku ah amniga gacanta lagu dhigi doono, sida saraakiisha khibrada ee la hadlay dhanka wararka ay inoo xaqiijiyeen. ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya waxay u muuqanaysaa mid weli sii cakiran marka loo eego arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka khilaafka ee hareeyay doorashada dalkan Soomaaliya. beeshii caalamka gabi ahaantood indhaha ay ka eegayaan waxa uu wado Rooble oo ay u cuntami laadahay, waxaana suuragal ah in go'aan uu qaato madaxweynaha jamhuuriyadda oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka maamul ee doorashada oo uu si xun u dhaqayo ama uu si xun u maareynayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda, sida xogta la helay ay muujinayso. waxaa jira kulan qarsoodiyaha oo dhexmaray farmaajo iyo beesha caalamka, kaas oo si weyn looga hadlay dhamaystirka doorashooyinka in la dejiyo hanaanka doorashada dhiska dalkan Soomaaliya, maadaama doorashada ay daba dheeraatay jiitankeeda dalka Soomaaliya waxyaabo badan ay uga lumayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la filayaa in maalinta 12 Abriil oo ciidanka uu kala qayb gali doono aasaaska maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dibadda loo taagay, uu sidoo kalena ka hadli doono dib u dhaca dalkan Soomaaliya ragaadiyay, gaar ahaan dadka lagu hawo dhagan dowladnimada Soomaaliya inay hana qaado, iyadoo markaas la aaminsan yahay inuu si weyn ugu dhaga hadli doono mucaaradka Soomaaliya iyo Rooble oo uu sheegay in isku milankooda uu saameyn weyn ku yeeshay nidaamka geedi socodka ee dalkan Soomaaliya iyo in dowladnimada Soomaaliya ay horumarto. guud ahaan saaxiibayaal wanaagta wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen channelkeena dhanka wararka. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.